بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومواضيعنا هادفك هيدي مركلة ما أنت وحين كهض لنا صدح يطبن نوع ضدك كمذا وأن إلهي سنكوض أقبلين إلهينا وحن برينا صدح يطبن كائننا كمذ نقن saddex iyo tobanka nooc qofka u horeeyay waa qofkii ku dhaca camal uu ilaahay ugu shirki yeelayo allana wuxuu leeyahay layna shrakta la yaxbadanna camaluka wala takunanna min alkhasiriin in allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha aayadahaasi waxay tilmaamayaan qofku acmaal shirkiya hadduu ku dhaco wuxuu dooniba ha ahaada inaan ilaahay acmaashiisa aqbalin sinfiga labaad ama nooca labaad waa almunaafiquun haba la kala qaado nifaaq ictiqaadiya iyo nifaaq camaliya culimadu ha u kala qaadaan laakiin qofkii nifaaq ku dhaca oo waxa ka muuqda iyo wuxuu qarinaya ay kala duwanaadaan oo ku sifooba sifaadka lagu yaqaan dadka munaafiqiinta isagana acmaashiisa ilaahay aqbali maayo soonkiisana ilaahay aqbali maayo sidaan mushriga ilaahay soonkiisa u aqbalaynin ayaan munaafiqana ilaahay waxba uga aqbalin waayo ilaah baa ballan qaaday wuxuu leeyahay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar dabaqa u hooseeye u liita ayay naarta ku leeyihiin xitaa naarta caadiga wax kuma lehe dabaqa u hooseeye ugu xun bay ku leeyihiin qolada saddexaad waa taariku salaa salaada hadduu uga tago isagoo inkiray fardiyadeeda isaga oo aan ogolayn oo diiday inuu kaafir yahay cidna iskuma khilaafin laakiin markuu takaasul iyo waxbaa wax loo sheegay hadduu taariku salaad yahay malcuun weeye ilaahay acmaashiisa ma aqbalo waayo salaada iyo maxaan ku dhahdaa soonki iyo acmaasha salaada ayaa ugu lafdhabarsan oo salaadu waxa weeye waa diinta lafdhabarteedii bal ilaahay iimaankuba inuu iyada yahay buu ku tilmaamay man aqaamaha faqad aqaama الdiin waman hadamaha faqad hadama الdiin salaada qofka toosiyaa diintii buu oogay uu toosiyey qofka dumiyaana diintii oo dhan buu dumiyey qofka afraad waa qofka salaada marna ka taga marna tukada ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen waxaynu eegaynaa dhinaca uu u badan yahay hadduu salaad la-aanta u badan yahay waxaynu haleeshiinaynaa taariku salaa soonkiisana ilaahay aqbali mahay qofka shanaad ka lixaad iyo ka toddobaad xadiid buu nabigu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay halaaatun saddex dadka ka mida laa yanduru allahu ilayhim ilaahay waxa weeye il naxariiseed kuma eego qiyaamada uma naxariisto acmaashoodana ma aqbalo walaa yusakiihim uma dembi dhaafo dembi kama dahiro walahum cadaabun aliim cadaab mu'lima bay ilaahay agtiisa ku leeyihiin waa maxay saddexdaasi waxa weeye caaqun liwaalidayhi waa qof labadiisa waalid caasi ku ah oo waalid caasiya qofka labaad waxa weeye waa qof mukadibun bilqadara qofka saddexaad oo qadarta ilaahay buu beeninayaa oo wixii ilaahay qadaray baanu raalli ka noqonaynin wixii ilaahay u qadaro raalli kuma aha duu xoolo yar yahay duu xanuun ku dhacay hadday wax si ka noqdeen qadar ilaahay baa si ugu dhacday qadarta ilaahay raalli kama aha ilaahay acmaashiisa isagana aqbali mahayo ilaahay acmaashiisa loo koryeeli mahayo qofkan saddexaad waa qofka mana sheegadka iyo abaal sheegadka badan oo wuxuu bixiyo aan ka aamusaynina mar walba soo celinaya isaga oo sheeganaya inuu hebel intaas siiyayo hebel intaas siiyayo ilaahay wuxuu leeyahay laa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa kaaladii yunfiqu maalahu riyaaa annaasi walaa yu'minu billah sadaqaadkiina iyo wanaagiina abaal sheegadka ha ku burinina hebel anaa siiyey hebel anaa u qabtay hebel wixii buu badsanayaa ayuu buunbuuninayaa ayuu sheeganayaa inuu dadka isagu wax siiyey toddobadaasna saddexdaa ugu dambaysa xadiidkaas ayaa lagu sheegay qofka sideedaad waxa weeye almustahzi biddiin markii niman munaafiqiin aha ay diinta ku jeesjeeseen oo nebiga oo safaradiisii mid ka mida ku jira intuu dad ahlu qur'aana karaameeyey ay ahlu qur'aankii xanteen oo yidhaahdeen kuwan qur-aanka xifdisan marka wax la cunaya maxaa ka caloolo weyn marka dagaal la gala maxaa ka fulaysan oo ka carariyo
ayuu ilaahay ku yidhi walain sa'altahum layaquuluuna inamaa kuna nakhuudu wanalcab qul abillaahi waaayaatihi warasuulihi kuntum tastahziyuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum alistihzaa biddiin qofku inuu diinta ilaahay ku jeesjeeso ilaahay ku jeesjeeso rasuulkiisa ku jeesjeeso aayaadkiisa ku jeesjeesaay waa wax millada lagaga baxayo waana wax qofka camalkiisii ku burayo naar ku mudanayo wey mas'alada saddexaad waxa weeye qofku inuu intisaabo fi'a daalla sida qaadiyaaniya iyo axmediya iyo qolyo aaminsan in nebi moxamed nebi ka dambeeyey lasoo saaray oo kale firqa dibadda ka joogta diinta oo bidca mukafira la timid qofku inuu u nusreeyo oo dulmiga iyo xumaanta iyo fisqiga ay samaynayaan uu ugu nusreeyo ayaa iyadana waxa weeye wuxuu ku mudan qofku soonkiisii iyo acmaashiisii iyo sadaqadiisii iyo saa'iru acmaalihi inaan ilaahay aqbalin waxa weeye qofka tobnaad waa qof la yimid nawaaqid alislaam wax burinaya diintiisii ama qowl ha ahaado ama ficil ha ahaado waxyaabo diintii uu kaga kufriyaya buu la yimid ilaahay waxba ka aqbali mahayo saddexda qof ee 11 iyo 12 iyo 13 nabigu xadiis buu ku sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi halaaatun saddex qof oo dadka ka mida laa yaqbalu allahu minhum sarfan walaa cadla ilaahay sunne iyo farad midnaba kama aqbalo saddex qof oo dadka ka mida oo bani aadamka ka mida saddexdaasi waa maxay almaliku alkadaab qof mas-uul ahoo dad u taliya oo madaxweyne ah oo maalintii la arkaba been sheegahay qofka 11aad waxa weeye ashaykhu zani waa qof odaya ama qof weyn oo habar ah oo islaam weyna ama qof weyn oo odaya oo haddana macsiyada xun ee liidata ee dankiga iyo dacfiga iyo faaxishada aan marna ka dhowrsanayn qofka 13aad waxa weeye caahilul mustakbir qof waxa weeye faqiira laakiin faqiirnimadiisa wuxuu ku darsaday inuu mufsid yahay kibirsan yahay madax taag badan yahay isla weynaan badan yahay inuu ku jiro ixtiqaaru annaas badaru lxaqi wa gamdi annaas nabigu tuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxa weeye istikbaar waa mujaawasat alxuduud weeye qofku inuu xuduudda gudbo tawaaduca ka tago dadka inuu la siman yahay uu dadka isdheeraysiiyo uu dadka iska weyneeyo oo uu mustakbir yahay iyadana acmaashiisa lama aqbalo oo soonkiisa la aqbali mahayo dadka aynu tilmaanay acmaashoodu waxay ka dhigan tahay hal bacaad lagu lisay wey hal bacaad lagu lisay oo meel bacaada inta la joojiyay oo la godlay la lisay laga sugi mahayo inay caana dhiiqda iyo inay ku xumbayso bacaadka iyo in khayr laga faa'iido toona qofka soomaya acmaashiisu ay sidaa tahay isagana waxba ka faa'iidi mahayo soonkiisaas waxaan ilaahay ka rajaynayaa oo ilaahay ka baryayaa 13 qolo qof inaga midihi inaanu ku sifoobin addaalu cala alkhayri ka faacilihi وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين